بسم الله أما بعد magacay waa Dr. Maxamed Axmed Jeki muuqaalkan insha Allah waxaan soo gelin doonaa mareegaheena baraha bulshada aan ku leenahay sida YouTube iyo Facebook sababta keentay inaan muuqaalkan soo gelino iyo muuqaalo kale insha Allah aan samayn doono waxa weeye inaan bulshadeena Soomaaliyeed wacyigeeda kor u qaadno mowduuca maanta rabnaa wax ka dhahno dadkana waxa weeye antibioticska isticmaalka kiniinada loo yaqaano qalajiyaasha marka hore hadaan qeexno antibiotics waxa waaye kiniinada ay Soomaalidu u taqaano qalajiyaal waa kiniino sida caadiga ah loo ugu talagalay in mataqaana loo isticmaalo bakteeriyada ilma aragtada waa badan yihiin marka bakteeriyada kan loo isticmaalo waxa la yiraahdaa antibiotics kiniinada marka guryo badan weeye cilmi ahaanna waa wax aad u fara badan laakiin waxaan aragnaa kadal waxa weeye isticmaalka kiniinadan iyadoo uusan dhakhtar qorin uusan qofku prescription ka haysan prescription waxa la dhahaa waraaqda qofku dhakhtarku u soo qoro sida dhacdo anagu naqaano waxa weeye qofku iska tagayaa farmasi iska tagayaa dowlad la'aanta maadaama yani saameysay farmasiyada waxaa furtay dad yani hadday doonaan aqoontooda lahayn hadday doonaan background medical background lahayn iska furanayaan dawladda sidoo kale iska jooga hadday doonaan yani dad professional aan joogin marka qofkeena waa iska tagayaa oo waa qof caamo ah aqoontaas ma leh haddii meel yar xanuunto wuxuu leeyahay kiniin qalajiyaasi ama haddii dhala yar sarto meel yar dhiig ka yimaado wuxuu leeyahay kiniin qalajiyo tusaale ahaan ampicillin sidoo kale ku leeyahay inagu ampicillin baa u naqaanaa maadaama talyaanigu na gumaystay marka qofku waa imaanaya waa iska gadanaya dhibaatada marka leeda waxa weeye qofkii hadhow haddii xanuuno kale ku dhacaan sida tusaale ahaan oo kale typhoidka oo kale xanuunka tifowga oo kale xanuunada kale food poisoning oo kale ay ku dhacaan qofku in hadhow ama xanuunada khatar sida meningitis encephalitis oo kale oo lagu daweyn lahaa antibiotics in mataqaana qofkii ay hadhow wax ka tari waayaan arrintaa marka waxaa loo yaqaanaa antibiotic resistance iyadana waxa weeye waa xaalad qofku kiniinadii uu qaadan lahaa ay u shaqayn waayaan oo yani ayaan ka adkaaneyn bakteeriyadii waxaana keenaya bakteeriyadu waa noolahaasi sideenoo kale genus buu leeyahay DNA buu leeyahay chromosomes buu leeyahay yani nucleic acids buu leeyahay structure caadi uu leeyahay marka wuxuu samaysanayaa structure ka duwan kii hore uu lahaa si uu isaga celiyo kiniinigan marka waxaan aragnaa goobaha caafimaadka aragnaa dad badan oo marka culture-ka loo sameeyo ay u shaqayn waayaan kiniino fara badan u shaqayn waayaan waxaan aragnaa dad badan oo ku tijaabin ilaa dhowr iyo 20 ama 30 kiniin oo kale oo laga yaabo 20 ka mid ah ama dhowr 20 ka mid ay yihiin resistance waxaan lahaa xaaladaas xaalad aad halis ah marka la joogo caafimaadka waxa kaliya in sheeg karna waxa waaye yani dhakhaatiirtu ama dadka ka shaqeeya caafimaadku dhibaatada ay ka maraan in qofka hal kiniin loo qoro qofku marka uu yimaado isbitaalka marka uu yimaado baaritaanka loo sameeyo yani baaritaankaas waxa qofka loo sameeyo waxa loo culture-na waxa weeye in qofkan sambalka laga qaaday ama dhiig ha ahaado ama kaadi ha ahaado ama saxaro ha ahaado mataqaanaa la beero oo iyadoo la isticmaalayo waxa loo midiyooyinkan waxa weeye waa waxyaabo lagu beero ama lagu koriyo bakteeriyada ama organismska bakteeriyada kaliya maaha laakiin waxaa ka hadla maadaama antibiotic yahay khasab waxaa tusaale noqonaysa inaan soo qaadano yani bakteeriyada marka bakteeriya si loo koriyo waxaa la isticmaala midiyooyin waa waxyaabo loogu talagalay markii la koriyo kadib oo bakteeriyadaas ay korto waxaa la sameeyaa waxaa lagu tijaabiya kiniiniyada marka inta ku shaqaynaysa oo yani dili karta waxaa la sensitive kuwa aan dilinna waxaa loo yaqaanaa oo ay dili waaya oo ay ka adkaato iyadu bakteeriyadu ka adkaatana waxaa loo yaqaanaa resistance kuwa halfna disho halfna yani aysan dilin waxaa loo yaqaanaa intermediate laakiin qodobkeena ugu weyn waxa waa resistance kuwa ah marka dee goobaha caafimaadka waxaan ku aragnaa dad say u isticmaalayeen antibiotic fara badan qalajiyaal fara badan say u isticmaalayeen ugu dambeyntii 20 kiniini yani ay noqdeen resistant oo aysan u shaqaynayn waana dhibaato aad u xoog weyn qofka hadhow maxaa yani ku daweynaysaa hawey hadduu isagu kiniinadii oo dhan wada isticmaalay guri walba hadduu isticmaalay maxaa lagu daweynaya waa dhibaato wey marka waa xaalad aad u xun weeye qofku markuu la yimaado xanuun ama organism laga helo organismkaasuna uu yahay
multi drug resistance multi drug resistant uu yahay waa dhibaato weeye yani kiniino badan qofka waa u shaqeyn waayaan arrintaas marka waxay keenaysaa qofka hadhow in la daawado dee maadaama kiniinadii oo dhan ay u shaqeynayn waa dhibaato aad u taagan weye marka aad baa uga digaynaa haddaan habada caafimaadka in qofka isku qaato dawooyinka aan dhakhtar kuu qorin way jiraan dawooyin la qaadan karo iyo dhakhtar kuu qorin dawooyinka waxaa loo yaqaanaa OTC laakiin kiniinadani iyaga ayagoo dhakhtar qorin ama qof dhakhtar uusan mataqaanaa supervision ku sameynayn lama qaadan karo way jiraan xaalado qofka isagoo aan xataa waxba laga helin la isticmaalo isagana waxaa loo yaqaanaa empirical treatment waa xaalad kale oo dhakhtar keliya yani ba awooddaa leh laakiin qofka inuu iska tago farmasi kiniinka dan iska soo qaato wax sax maaha aad baan uga diganaa haddaad soo gaartay muuqaalka dhammaadkiisa waxaa kaa codsanaa inaa haddii aad facebook naga daawanaysa salo soo tiraahid like saartid muuqaalka sidoo kale haddaa youtube naga daawanaysa subscribe saartid si aad muuqaaladan iyo kuwa kale oo ka faa'iido badan insha allah u daawatid waa mahadsantihiin